in delivering the very admirable agenda you have for the people of Hirshabelle. marka ugu horeysa hambalyo waxaan jeclahay inaan ka hadlo ajandaha muhiimka ee ku hor yaala oo dadka Hirshabelle ka sugayaan. This ceremony is taking place as we are still in mourning after the terrible events of the 14th of October. xafladana waxay dhacaysaa maanta annagoo weli ka xanuunsanayna dhacdadii aadka u xanuun badneed ee 14 October oo dad badan ay ku leedeen. Every man, every woman, every Somali has been affected. qof kasta rag dumar caruur waayeel oo Soomaaliya jooga arrintaasi saameyn maaragtay toos ah bay ku yeelatay. But the response has been amazing. It has been the most extraordinary act of solidarity between the local people, government, business, civil society, the international community. It has been very impressive. balse sida looga jawaabay dhacdadaas ay taad ku xanuun badneed ayaa ahayd mid runtii aad iyo aad loogu farxo haday ahaan lahayd dawladaha maamulada ganacsatada dadka maaragtay magaalada degan dhalinyarada international community ga dhammaan waa loo wada istaagay gacmahana loo qabsaday. It comes at a time when Somalia is making such progress. So many positive things are happening. Mogadishu is improving. Johor is improving. It's great to walk around and see all the construction and the hotels. waxaan arintan imaanaysaa iyadoo wax badan oo maaragtay fiican oo wanaagsan la sameeyay. Soomaaliya hore ayay u socotaa, Muqdisho horumar ayaa ka socda, Johor horumar ayaa ka socda. sanad ka hor ilaa hadda anigu la fahanteeda isbedel aad u weyn ayaan ka arkay haday ahaan lahayd xagga dhismayaasha iyo inaan maanta awooday inaan si xor ah Johor dhexdeeda ugu soo lugeeyo. Excellencies, distinguished guests, Mr. President, on behalf of the European Union, I would like to give you our most sincere congratulations. From our house poet to Hirshabelle, Somalie Salan Wahan, Side Rabo, Side Tahay, Sobe Wainu Arakne, Wa Side Amurtuye, San Akka Waha, Sansantu Walibin, Hirshabelle Gul, Somalia Anolato, Mahat Sanidin.